عولان ومكوباليانا نظيف جامع عالن نظيف جامع عالن أكوي فلاك بيرا يا جفنا غارسا كاونتي نسي عولان بكياكي سي عولان بكياكي أنا ببيو بندera وكريستو وإسلامو na wale wanaishi hata paka. So hata paka anataka alishwe. Si ni kweli hiyo? Mimi nina hakika Nadhif akiingia tutaenda bere. wax badan baa laga soo hadlay. Si la socotaan qoyskan hadda maanta meesha ku yimaado Cawliyahan laba nin baa musharax ahayd kursiga gavanaga Soomaaliya. dadaal ay geliyeen odayaasha dhaqameedka sagaalayaasha dadka mutacalimiinta ahaayeen wax garadka dhammaantood maanta ugu dambeynta guul baa la gaaray walaalkeen maxamed mukhtaar shiidiye ambassador shiidiye dhageysta wuu tanaasulay kursiga wuxuu uga tanaasulay walaalkiis Nadiif Jaamac walaalayaal maanta waa maalin farxad badan meeshan waxaan joognaa reer la dhaho Cawliyahan ama beesha Cawliyahan oo reer Gaarisa oo bah iyo boqorba ay ku idil yihiin maanta waan tashanay laba nin baa rabtay xilka gabananimada Gaarisa County labada ninna waan soo qaadnay ninna waan reebnay ninkii la reebana Faatixu qaatay wuuna ku mahadsan yahay ninkaas waa Maxamed Mukhtaar Shiidiye asagana wuu naga ogolaaday waxaan codsanaynaa wax alla wixii taageero u ahaa Maxamed Mukhtaar Shiidiye inay daba istaagaan Governor Nadhif for campaign waxaan kala codsanaynaa Nadhif adigana raadi dhammaan tolkii inta ka maqneed iyo inta kale oo aan ahayn Cawliyahan intaba raadso adiga noo hadda ninkii aan kursiga u rabnay annagoo idina garabkaadaan nahay walaalkeen iyo walaalkii محمد شيدي سفير محمد شيدي امبازادور محمد شيدي هاي كوميشنر asagana wuxuu yiri raali baan ka ahay waa ku qanacsanahay waana garab taaganahay biri marka wax yaro waxa la dhahaa Kenya negotiated democracy wala dhahaa markii laakiin aqoonyahan ay yihiin dadka in yaro salaadiin ay ku jiraan masadad maartay dadka maartay dhaqanka odayaasha dhaqanka laakiin ay u badnaayeen dadkii aqoonyahanka ahaa ayna isku raaceen oo unanimous iska noqotay oo maartay lagu tashaday kulli in uu ninka la soo saaro oo asaga uu dhameysto wixii qabiya ka ahaa tiina maanta soo gabagabowday waan soo dhaweynaa garabeen oo nahay Nadiif Jaamac insha Allah wuxuu noqon doonaa governorka ka soo gali doona county Gaarisa waa farxad weyn farxadaas oo maanta u soo hooyatay reerkan aan ka dhashay reerkan Cawliyahan oo waxoogaa nagu jirtay maxaan kugu dhahaa waxoogaa khilaafkii maanta wuu naga baxay waa maqlin soma khilaafka waa naga baxay haddii wax jiray number 1 horta mahad ilaahay baa iska leh number 2 dadkii arrintan ka dambeeyeen odayaashii ogaaska sultaanka Xamud sagaalayaashiisii walaalahay nimanka professionalska ah oo hogaaminayo engineer Cabdirasaaq iyo dhammaan inta la socotay culamadii gabdhaha ma artay leaderska ah iyo dhammaan inta kaleba bishaaro ma maqashay mise ma aragtay hadduu warkaada maya yahay ha moogaan horyaalka u haya hanaanka waxbarashada hee halla bal aan ku daliishe mataqaanaa dugsiga sare ee Al Rawda High School waad ku mahadsantiin waxaan salaan khaas ah oo aan leeyahay yani aad runaantii khaas u aan u diray walaalkay Maxamed Mukhtaar Shiidiye oo asagana arrintan maanta ogolaaday inuu maanta asagana cidda u qabsoomo oo hawshan uu maartay qayb fiican ka qaato oo maanta farxadaas uu kala qayb qaato marka alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa weeyaan guushaas waxay maanta noo soo hooyisay midnimo oo xagga cidda ah laakiin ma aha in kursiga